السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحمد مؤمن علي waxaa inoo socday cashiradeenii taxana ahaa cashirkan waxaan ku baran doonaa sida pages loogu soo diro bloggaaga waxaan ka soo hadalnay cashiradeenii ugu horreeyay blogger maxaa la dhahaa yaa isticmaali karo sidee loo isticmaalaa sida u shaqeeyaa qaybtan waa tii labaad waxaan ku baranaynaa sida pageska loogu soo diro website maxaa la dhahaa bloggaaga si oo u noqdo mid qurux badan marka waxaa baranaynaa blog sida loogu diro pageskan kaliya kadib waxaa baran doonaa maxaa la dhahaa sida postyadan camal loogu soo diro social media pageskan sida loogu diro sawiro sida loo soo geliyo wax walba oo website aad ku samayn kartid in yani blog aad ku samayso okay marka aad inaad ku dirtid maxaa la dhahaa pages ugu horreyn waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran dhuftaa pages ku dhufo kadib waxaa ku dhuftaa meesha aan ku qoran tahay new page click ku dheh okay uu noo furmaa wuxuu leeyahay loading okay hadda pagekeeni waa noo soo baxay waxaa ku dhufataa tusaale home waxaa dhahdaa publish waxbaa ku qorin okay waxaa noo sameysan home haddana waxaa ku diri kartaa mid kale keli ku dheh waxaa ku dhufataa videos ama waxaa dhigi kartaa email kadib waxaa dhahdaa save mid kale ku dar waxaa ku dhufataa blog publish and save deh okay waxaa ku dartaa mid kale new YouTube mid kale ku dar hadaa rabtid waxaa ku dhufataa about us okay save deh hadda waxaa ku darnay intaan haddii halkaan aan ku dhufano oo aan dhahno maxaa isbedeloo jiro waxaa u baahnaa marka inaan halkaan soo saarno